السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشنا قيمها بدن كسو دوادا برنامجك كولنكا غاركه. برنامجك كولنكا غاركه maanta waxaa marti ku Dr. Axmed Sheekh Cabdullaahi Maadka oo ah cilmi baaraka ee jaamacadda Sabaxdiin Zaciim ahna murashax xildhibaan oo ah barnaamijkan maanta ka hadlayno oo doorashada Soomaaliya iyo sababaha uu isku ku kaliftay inuu soo sharaxo. Dr. soo dhaw marka hore aad ugu faraxsanahay. Salaam mahsanta. aad baa mahsanta. Hadii su'aasha ku bilaabo maxaa ku kalifay xilligan inaad is sharaxdo? Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan mahad celinaa walaal Cabdi Suleymaan iyo dhamaan bahda idaacadda TV-ga Misk xaruntooda weyn Istanbul ku taalo fursadaan ayna siiyeen. Waa su'aal muhiim ah in uu qofka aragti yeesho aragtidaas inuu ka mar dhaliyo jirto waxa laga maarmaana sababo ku kalifay inay jiraan. waxyaabaha oo igu kalifay inaan usoo istaago door kursi aan u tartamayo oo nambarkiisu yahay hob 176 ee golaha shacabka Soomaaliyeed oo deegaan doorashadiisana tahay Koonfur Galbeed. waxyaabaha igu kalifay waxa kamid ah marka arka kow firaaq ka jiro ama baahi matalaad inay jirto markaan dareemay. sidoo kale waxyaabahan dareemay waxa kamid ah doorkii dhalinyarada iyo doorkii aqoonyahanka deegaan doorashadeeda inuu ka maqan yahay markii loo fiiriyo waqtiyada hore dadka matalayay marka loo fiiriyo. tusaale ahaan hadda aniga kursigan u tartamayo qof waxaa fadhiyo muddo 22 sano xildhibaan ah. kursigan hadda u tartamayo 22 sano sin sacarta u fadhiyo arta laga soo bilaabay hadda. markaad fiirisana wax cad oo lagu la xisaabtamo meesha ma yaalan. 22 sano waa waqti oo dareemi karo qof kasto Soomaali uu sabran karo intuu u gaarsiisan yahay waqtigaas xajmigiisa intuu leeyahay qof kasto sabran karo. tan saddexaad kalifaadka kale waxay ka timid bulshada aan ka soo jeediyo deegaanka ka soo jeedo iyaga ugu kalifay in maxaan ku yiraahdaa soo istaago kursigaas una tartamo iyo tan ugu dambayso oo waxa soo dhan soo khulaasay karto oo kalifaadka keeni karta in kursigaas waxa kamid ah aniga naftirkeyga shakhsiyan ka aaminsan falsafad cad kursigaas aan leeyahay bulshadaas aan matalo iyo deegaanka ka soo jeediyo Soomaali guud aan ka aaminsanahay falsafad cad aan ku hogaami karo kuna matali karo. marka waxyaabaha soo dhan markii la isku geeyay baahiyaha soo jira markii la isku geeyay ayaa keentay inaan isu soo sharxo kursiga sumadiisa tahay hob 176. Dr. dhalinyaro badan yaa gashay siyaasadda horta oo adiga waxaad kamid tahay dhalinyarada aqoonyahanka oo maanta u taagan inay xil umadeed qabtaan. min xilligan dhalinyarada siyaasadda ku soo biilaan aragtidaad ka aaminsan tahay ka falsafad ahaan maxay tahay? waxa loo qiyaasaa Soomaalida qoraalada dambe marka fiirso 10 sano ugu dambeysay qoraalada ay Soomaalida sameeyaan ama hay'adaha cilmi baarista sameeyaan waxa loo qiyaasaa shacabka Soomaaliyeed inuu yahay 70% dhalinyaro. that means $3 ay ka yihiin shacabka Soomaaliyeed inta u dhaxaysa da'dooda 25 ama ka soo bilaw 15 ilaa 40 inta u dhaxaysa. inkastoo markaan cilmi nafsiga fiiriso da'da umriga lagu tilmaamo dhalinyaronimada siyaabo kala duwan dadka mu'allifiinta ama dadka ku takhasusay cilmi nafsiga u kala qaadayaan. maadaama shacabka Soomaaliga majority-gooda ay yihiin dad dhalinyaro ah waxa dabeecadda waxay dadka baraysaa inay laga maarmaan tahay majority leaders minority la dhihi jiray marka qofka dadka badan ama aqlabiyadda inay maamusho aqaliyadda inay maamusho. labo hadda marka anaga waxaan maamulayaa aqlabiyadda dhalinyarada in loo baahan yahay laga maarmaan. tan labaad in dhalinyarada dadka soo istaagaan waxa kamid ah sunno waxa jirta oo rabbaani ah. nabiga عليه الصلاه والسلام waxa laga soo wariyay inuu leeyahay nasrna shabaab xiina khadalina shuyuukh waxa ii gargaaray dhalinyarada halka ay mar ii hagardaamiyeen doqowdi. qofka dhalinyarada wuxuu xambaarsan yahay energy gaar ah wuxuu xambaarsan yahay aragti iyo wadaniyad gaar oo aaminsan yahay jirto gaar ahaan qofka markuu aqoon leeyahay una soo arkay wadamo kala duwan oo dhisan horumarsan waa qof caburnaad marka waa qof masiirsan si kale markaan u fasiro yani tusaale hadda marka Turki joogo ama Istanbul aan joogo horumarka aan arkayo dhanka tacliinta ka gaareen dhanka dhaqaalaha ka gaareen dhanka bulshada ka gaareen adiga meesha wax ku bartay ama ka shaqeeyo ama another wadan kale oo qofku joogo Soomaaliga dhalinyaro ah wuxuu dareemayaa marka hadduu muwaadin dhab uu yahay dalkiisa la jecel ka galayso marka masayr ayaa ku kalifa in la jecel oo dalka loo qabo in lagu biiro siyaasad waana dhiirigelinayaa xaqiiqatan dhalinyarada waxaan aaminsanahay inay meel gaarsi karaan haday ay leeyihiin aragti iyo hadaf isku xiran haday yeeshaan dalkooda ku samata bixi karaan. tusaale aan soo qaadan haddana aad u fara badan yihiin wadamo fara badan Islaami aan soo qaadan karnaa
Mahathir Mohamad reer Maleeshiyaanku wuxuu ku tilmaamay inuu yahay father of Malaysia abaha Malaysia inuu toddoba dhalinyaro ah ayuu la tashtay markii uu horumarinta iyo nahdada iyo Malaysia kicinteeda iyo markii ku dadaalayeen xoogooda wadankaana joogna xataa madaxweyne Rajab Erdogan iyo xisbigiisa iyo inta badan xoog iyo doorkiisa dhalinyarada ayaan arkaynaa loo carbinayo ansoon yani wadan kasta tusaale markaad u qaadato dhalinyarada waa mishiinka bedelo waay ama makiinada bedeli karto dhaqaaq kasta oo bulshada hore inoo socdo marka aragto horaadka carabta soo qaado horumarka reer galbeedka soo qaado caalam islaamiga horumarsan soo qaado dhan walba markaad fiiriso dhalinyarada muhiim ah islaamiyan xitaa marka u fiiristaan sheegaa waay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam doorka dhalinyarada marka soo wuxuu hogaamiyay dagaal fara badan hogaamiyay dhalinyarada marka fiiriso Usama bin Zayd Ali bin Abi Talib wixii la mid ah iyo dhalinyaraha marka qofka dhalinyaraha wuxuu leeyahay energy awood kale qofku marka soo ugu darsanto si yaraanaysa marka waa qofka Soomaalidan waa laga maarmaan dhalinyaro badan baa siyaasadda Soomaaliya ku biirtay baarlamaanka ku biirtay wasiiro laga dhigay nisba weyn baa la siiyay mug weyn baa la siiyay maxay natiijo buuran u keen laayeen maxay ugu fashilmeen inay dalka wax ka bedelaan ilaa hadda natiijo ma aragna fiican waa su'aal fiican meesha ku jirto xoog dhalinyaradu waxay soo galeen doorashada ugu dambeysay 2016 soo galeen basically marka fiirso siyaasadda waxa loo galaa tan Soomaaliya marka fiirino ama si umuuman ay caalamka saddex qaab loo galaa siyaasadda qof hadafka siyaasadda kullee waxay tahay in magac ku yeesho ama maal ku yeesho qof aaminsan qof labaad baa chance fursad isagoo maanta qorshiisa ahaanba inuu siyaasadda ku biiro ama baarlamaani noqdo ama wasiir noqdo whatever oo position siyaasadda inuu noqdo chance ka soo raadsanay isagoo uma diyaarsanin tan saddexaad waxa lahaa vision aragti qofkii noqdo marka tan naga maqan in fashilkii keen waxa kamid ah qofkii haduusan aragti wadanin ama hadaf uu rabo hadafkaas inuu xaqiijiyo oo bari markuu ku guuleysto positionka u tartama oo leeyahay sanadka u hore nisba meeqan boqolkiiba ka xaqiijiyo hadafkan damacsana yani tusaale ninkan wuxuu dhahay hadaan ku guuleysto kursi xildhibaan aan u sharxanay nambarkiisa hebel uu yahay waxa uu ku guuleystay ilaahay uu qadaray inuu xukunkii u damacsana u helo sanadkiina uu dhaw waxa ay qorsheysnaa inaan arday intaas oo wax barashan u raadiyo waxa ay qorsheysnaday inaan deegaanka uu ka soo jeedo intaas u qabto qofka isla xisaabta male marka يعني vision لأنت أم هدف لأنت قفك إسكت جلها سياسة وكورير وكجه وريرة وحلم يتقف وكليده ما أنت وصلوا قرش سنين ومركز سكندري كبح وكبيرة يوكله كليده سكول حوريرة هذه ما أنت هدف كوها عارف ما بحكي بكرتها أم إنجنير بحكي بكرتها أم سوشيال ساينس بحكي بكرتها أو حكون في عندها تاريخ تسألك الساقط تاريخ الجعل هذه سكول كأنت ديانيسي تاريخ تكون أكسن هذه لأن مؤرخ وفو صبرنا هذه السنة اللي والدك كوه كلف أم قفك له كوه كلف أما هذيك حتى ضدك وضريع أسكن ضدك عفمات هذا وكوف فشل مسا يعني ما هن هدف كاجا ما هن قف عفمات برتون هن لم يده مركب قفك السياسة دكوا بيرها دوسا وذنين أركت عد يفلسفة عد والربع إنه نفتي سنة كل حسابتهم ضدكم مثلا إنه كل حسابتهم هذا السنة هن لا شك إنه مقفك سكوف فشل معه marka natiijo badan wuxuu imaan weysay waxa is leedahay aragti la'aan baa vision la'aan lack of vision aragti la'aan oo dadka ay galayaan yani dad badan aragna dad badan waxay dhaliilayaan dad badan oo aqoon leh baa galay hadda dadkii waxay markii la dhaho aqoon hebel baa soo sharaxay wuxuu kale aqoonta maxay noo taraysaa dad badan oo aqoon yahana soo sharaxay waxna waa keeni waayeen aqoonta deesan kartida waxay macna leedahay mar hay aqoonta wuxuu baahan tahay kartida da definition siina qaxitaan yaraan ka bixino kartida qofku inuu leeyahay ana aragtaasan fulinaya inaan sameeyaan u baahnay qofku wuxuu leeyahay aniga waxaa jirto ahdaaf aan i xariiqana jirto inaan fuliyaan rabaa jirto qofku inay ku abuuran tahay ama uu leeyahay simaad wadanimo ama Soomaalinimo qofku ku abuuran tahay inuu leeyahay yani haduusan qofku waxaas uusan lahayn kartidaas dhan haduusan lahayn يعني أقونت وحنا معنا كينيس ما جت أقونت معها حاشية يشاهدون لقات كليه وحنا معنا كينيس ماله هذول سن قفك أقونت يسن كتر جمينين يسن بدلينين وحنا حنبارسين مركز ياركتوا حنبارسين هذا السنين قفوا وقفش ما دوك هذا جورن قفوا حتى عركت الإبسدا عادي هو ما قفوا إنه جرى أيديولوجي بيسد هو قفوا إنه عادي فكرة دوك الدولة إنه جرت لقى مارمان هو marka dhalinyarada ku biirto dhan saan hor u sheegay amar labaadna ku adkeena waxay tahay hadaf la'aanta aragti la'aanta safashilka keenaya marka asxaab badan aan ku leenahay 2016 كي قالين مركز ورئيسة قفك محاك هو كلي في السياسة ده هو كله نصيبك السعيد وحنا ما جرت نصيبك السعيد waxaa markaa ku biirayso inay jirto aragti cala ugu biirayso inay shaqada markaa qaybta midnimada iyo dhalinyarta xitaa inay isku xirnayn qayb bay ka tahay of course sababtoo ah gacmooda jir wax ku gooyaan dadka markay isku xiran yihiin oo
إليهين الضلط مدرسة إليهين الدوضة يلنا صوبته وحنا كصوب حي مركز وحكي سوق حي وقف كسو حجره لابتيس وحكوك السناجر مسكحيس وحكوك السناجر لكن تذكر مركز الدودان الروحان contribution كوصوبها that's why أنا قانو سوقاته isku xirnaashaha caagir oo mineral water kana caagir biyo ku jira da soo qaadato caaga markuu hafi hadaad ruuxdo dhawaqiisa maqlay haduu buuxan ruuxdina dhawaqiis maqlayso caagaas aan sawirno inuu yahay Soomaali marka biyaas lagu shubay inta contribution ah oo qof kasta dhibicdo ku shubay marka caagaas kullama aan buuxino kullama Soomaali adag ay soo bixiso oo ruuxitaanku ka yaraanay kullama caagaas hafi hayna markasta ay tahayna markasta la helay Soomaali haafa in la helay يعني مركز dhalinyarada hadii network abuurtaan qof kasta contribution kiisa maskaxiyeed iyo waxay abuuranayaan ayaa soo baxay marka oo dadka u sawirmayaan xaqiiqatan marka dhalinyarada badan oo hadda is sharaxday oo tiimad garanaysa jiro kulli is sharaxay صح isleeda isbedel ba imaan doono insha Allah in dad wanaagsan jiro markasta lagama quursado raxmad ilaahna lagama quursado hadii Soomaalidan waxa waa dadka wada xuma dad wanaagsan jiro waanu ku boorinaa qof kasta oo Soomaaliya dhalinyaro ah wax bartay hadda wadanka iska qabiil waa nidaamkan qabiiliga 445 waxa loo qaybsanaa at least qabiil kasta kiisi wanaagsan ah soo hormariyaan maamul goboleedyada madaxda gacanta ku hayso iyo gudiyada doorashada iyo bulshooyinka la matalayo qof kasta waxa wanaagsan qofka uu wanaagsan uu khiyaarsan inay maxay ku yiraahdaan ay soo hormariyaan wanaagsan marka hadaysan staas dhicina Soomaaliya dabcan hadii god ku jirtay waxaana noqon doontaa god kale inay ku sii dheerto waxaana wanaagsan in maxaan ku yiraahdaa oo dhalinyarada yihiin waaqicooda iyo fahankooda wadanka ka haystaan iyo siyaasadda wadanka ka haystaan mid ku bacaynu yahay oo la socon karo moodareenkan adduunka hadda jira mid la socon karo inuu yahay aad oo doctor aad u mahadsan tahay waxaan galeynaa faasil laakiin intaan faasil ma ka soo noqono waxa ay noo dhiman kursiga golaha shacabka 176 aan gudaha galnay adiga waxaad u qaban doontaa bulshadaas isku soo sharaxday daawadayaal waxaan galeynaa dhextaal kooban soo noqod wanaagsan si aad wax badan uga ogaato Turkiga la soco baraha kala duwan ee Miss Soomaaliya soo noqosho wanaagsan daawadayaal waxaan meesha kaga sii jirnaa barnaamijka kulanka gaarka oo marti ku ah Dr. Axmed Sheekh Cabdullaahi oo murashax xildhibaan Dr. waxaad murashax u tahay kursiga golaha shacabka 176 bari ka maalin bulshadaasi way ku dooratay kursigaas inaad ku message ku doorteen bulshadaasi maxaad rabtaa inaad u qabato aragtidaada kamid waxyaabo ina qabtiin aan u galno waxa kamid ah kow waxaan si dhabaan u aaminsanahay maqooladii Umar bin Khattab oo heeday لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها خير يفائد ملي دين شعبه هدادا وحدهم حلقة وذا هدادا تلنا السين هدادا نهو جامين هدادا تسالوين بدن ما افتينين ولا خير فينا أنا خير ملي عمر بن الخطاب مركولي هي وكما ضح أهان وكوضع بالشاز ذاتكو جامينوس إلا ما نسمع هدانا ديجيسين كوفرت وحان waxyaabahan balanqaad waxa kamid ah mid noqdo u dhugun nugul dhageysta afkaarta iyo aragtiyada iyo talooyinka oo bulshadu matala markaas siinayaan horta taas waxyaabaha balanqaad ay kamid tahay sababtoo waxa maqli jirnay Soomaalida inta badan ay ka cawaado xildhibaanku waxaan aragnaa markuu xildoon yahay bis lama tashto lama yaqaano kursiga markuu helo albaabkiisa soo xirtaa yisi yani marka taas horta inaan bedel oo dadkan matalayo deegaanka ka soo jeedo inaan si dhab ah u dhageysto sida baynaan maxaan ku yiraahdaa aan ugu tusaale qaato inaan yeelano jadwal aan ku doodi karno jadwal isbuuceed ha noqdo isla xisaabtan accountability inay isla xisaabtami karaan labo dib guud oo Soomaalidu dhan haysto jirta oo baahi aqooneed Soomaali si guud u haysato iyadoo jirto hadan deegaanada marka fiiriso oo koonfur galbeed iyo kursiga aan ku metelay bulshada ku abtirsato baahi aqooneed badan way jirtaa iyadana أنا قطو إن قفكي إن واحد برشدي وبهاي أقونا ده كجرته إن فرصتي بدنا أو من حدها دولة الصومالي لصين حتى إني سنهيلين حكى جارين بدنا إن وحيابها صوبته
إذا كلام مقولة كلو عجيب هاجرت ومانديلا مركو كجري هالجماعي وهالجماعي سود أفريقيا لا سوريا جرت وحوليه هبك أوين أدرت إن برشة مركات بدش ومهم سنين أديكسته وأقنت education is the most important weapon to change a nation هبك مهم سمك عرفت برشينا بدش أقنته وإقرأ وعايدوا رسول القرآن كسود دجوا مركا إن وحي فرصة دولة الصومالي كجاء آدم ومن حين وحبرشان قطع إن يجنا أي هلان سو كلام مثلات عيد هدينا قال هذي مثلات قال هدينا قال هذي دجانا داس عن كم مثلين كرسي أديك جهوز أديك بالشدة نعيش كل دون وحبرشدة عافيماتك أديك عيدا يجنا يسوق كلام هذا كتر تميسو دباتوين بدن باكج مركو جفاف كي ماذا أبارها مركي إمادان وكلام أديك بالشدة سوق أديك بالشدة سوق له absolutely أبارها إن على الله هلا waraad fiican in loo helo waxaan soo dhan insha Allah tabaaraka taala hadaan ku guuleysano kursigaas Ilaahay nasiib nagu dhigo inaan wax ka qaban hadii arno lawna la xisaabtamo hadhoona lagu la xisaabtamo taas waa ereygaasaan xoojinaa marka waxa u badan qofka list dheer oo sameeysan karo waxaan qabno waxaan laakiin lagu la xisaabtamo marka waxa ka muhiimsan 5 qodob iyo 4 qodob aad wax ka qaban karto diyaarna oo in lagu la xisaabtamo kun qodob been ah waxba ka qabanin sida qaar dadka ka fahansan siyaasadda been ma siyaasadda waa binaadinka la maamulo binaadinka la hogaamiyo waxa u tartamayaan kursiga u tagan waa gol shacab Soomaaliyeed waxa ku metelaysa shacabka Soomaaliyeed waxa ku metelaysa deegaan gaar ah waxa ku metelaysa beel gaar ah يعني mar qofku waxa saaray mas'uuliyad kala duwan saaray marba stage jooga marxalad mas'uuliyadkaas kala duwan inuu qofka isku xiro laga soo bilaabo beeshiisa iyo deegaanku mesela ilaa tii Soomaaliya iyo maslaxada qaranka ilaa maslaxada qaranka Soomaaliya laga gaaray qofka mid kastana waxaan u diyaar u ahay isla xisaabkii aadan inaan wajo diyaarana marka waxa yaaban damacsan haduu Ilaahay noo garab galo inaan ku guuleysano kursigaasi aad weyn waxay ka dhigan tahay kursigaas diyaad ku soo baxdo insha Allah ku rajeynaa ku soo baxdo in la doorto aqoonyahan cilmi baare doctor maxay ku soo biirin kartaa dhalinyarta Soomaaliyeed ka ahaan shakhsiyan xisab kow dhalinyarta ka dhalinyar ahaan guud ahaan waxa sharaf u ah qof kastoo dhalinyar ah wax bartay inuu matalo darajada doono cilmi haysto waa sharaf dalku soo hoytay laba waxa sabir wanaagsan ama muuqaal wanaagsan ka bixinaysa dalka laftigiisa markuu qofka oo la tacaamulay dadyo kale dariska Soomaaliya ha noqdaan ama dadyo ka fog Soomaaliya ha noqdaan oo qaaradaha kale ah qof oo muthaqaf ah oo fahmi karo wacyiga Soomaaliya una sharxi karo adduunka kale og problems ka jiro dareemi karo problemskaas background ka qiima heesta afkaaro problemkaas oo ku xalinay fiigsanay natiijada oo soo baxdo يعني قف كاس نفتر كذا وحوت هاي شرف وين وتهاي إن مقالك الصومال نفتر كيسة بدليسها يعني ما أنت هالك صوم مقالها تصال هذا يوجر شلو جامعات عربية برلمان هذا جر كبسوقهم أما كوي أفريقيا جر أما كوي أورك إسلام كي يعني دلبها الصومال حبين كته متك السكودلوين برلماني ليه هنا ما كيو برلمان الشرعي لنا أدون إنجاي حبة قرن إنه كسوء هذا مش هس يعني السبب حنا لا قاعدنا وأنا دي بدنا هذا جري وأنا دي بكجري كميته لكن قف حبرتي مثقفة عرقتي وضو الصومالية أدون مش فريستو ويران waxa way jooyinka kala dalka kale daladaas iskala tirsan yihiin waxay ka qaadanayaan muuqaal qurux badan Soomaaliya laftarkeeda inay gaariso ay ka qaadanayaan marka Soomaaliya bi sharaf u tahay in la yiraahdo aqoonyahankeeda jaanisiyaan wadanka sumcadiisa wanaajinaysa muuqaalkiisa wanaajinaysa طبعا waana wax kamid ah dhabooyinka horumarka lagu gaarana qayb kamid ah inay tahay ayaan aaminsanayaa dad badan ayaa markii ay xilka qabteen hadafkii loo doortay ka weecnay taa iyada ma laga yaabaa inay adiga ugu soo baxdo مرة جينا إن شاء الله ضدك أنت بدن هدف كاسين كوي عدان كأنه حكم الكودي بملهن جريت أما تير حوجني كتير سنين ملهن Soomaaliya waxa kamid ah mabaadi ma ka jirto axzaab siyaasadeed kama jirto oo mabaadi ku salaysan yaa la rabaa inuu abuuro marka aqoonyahanka iyo qofkii wax fahansanaa wadciga fahansanaa duusan siyaasadda ku biirin goorma la gaaray markii la xaqiijiyo waxas waxa laga maarmaan waa inuu wadanka u gaar xisbiyo gaaro wadankiina one vote inuu gaaro ama one person one vote inuu gaaro wadankiina horumar badan gaaro wadankiina tartan la gali kara daris ku xidhan hadduu qof kasto isku tuhmaayo wanaag iyo aqoon iyo horumarin iyo Soomaalinimo iyo daacadnimo look saddex shay jirto wadan muwaadin iyo wadaniyad wadankii waxa haysan Soomaaliya la muwaadinkii waa shakhsiga Soomaaliga oo wadankaas ku nool geographically East Africa ku yaala ama Horn of Africa ku yaala ku nool waa numberkood loo qiyaasay 20 milyan wax ku dhow muwaadin Soomaali qof kasta Soomaali labadii shay wadankii iyo muwaadinkii tiirkiis ku xireen naga maqano wadaniyad
qofka wadanigii oo la jecelihi iyo dalkiisa inuu horumaris gaaray iyo dalkiisa inuu matalaad dhab u yeesho tii aan naga maqan marka waxa isku xirmi lahaa wadankii iyo muwaadinka isku xirmi lahaa عامل كسكو حرلا ما فكتك كسكو حرلا مش كمان أو قفك مواطن ولا هلا وطني يد كم تسنى أو نبتة إلا أنا جنب قمرك يعني قف حدا ركيس وحاس سعد بدن بكارك وطنية تاكتي أو استعمال كارك وطنية ده كان إلا بير الحوينه لا لعب لك عينه لا دورتي دورش إلا جارسي كدي من سيدي إلا فيلا النقني ما دعي كرتاي يعني إسلانا مبادئ ده ما مقن وعي وجود ما مقن مبادئ ده جود وطنية ده قفك كدوجا absolutely wadanidu waxay ahayd qofkii lagu soo baro iskuulka iyo inuu jiilka ula soo barbaaro iskuulka hoose kala soo bilaabo ilaa inta maraaxisha kala duwan oo jaamacadaha ku jiro in la korteedo qofka muwaadinka wadanidiisa u gaar horta markaas qofka xitaa fahmi lahaa qofka markaas hor istaagay kursi damaciisa u yahay oo wadanidu sharxay kee dhabta ka tahay iyo kan aan dhabta ka ahayn labadun kala saari lahaa marka wadanida saxda waxaa asaas u ah mabda iyo principles asaas u ah قفك مبدأ الوطنية إنه يهشه قفك وين يجران مبادئه كدولة لقى معرمانا مركا مع الأسف لكن إن شاء الله ولا قبل حدنا تير كاسونا كم قانو قفك الصومالي جاي يدل كيس سكو حر لها إن نجنا قيب كنا قانو إلا هلا نوارجين الصومال مركز في كوب عيسى مركز ضم حقيقة لما ننكر كره هذا الدولة دي ضم مركز في رسول لما تكون دولة دي أساس مسي إلى الدولة دي لما قرأ فرت مكة أساس مسي هرو سعودي مركز فوار شفتنا لسمينه هذا جورجورته شل عبد القاسم أنليست حسوا عليه مجمع الصومالي الدولة دي من الصومالي بربر كنت الوجري عبد الله يوسف عاصمة الصومالي وكان ويران مركز فيروس المركز هذا أنا قصي لا وطو الشيخ شريف عاصمة دي حورين تدي وناجس كده كشقي حسن الشيخ جد أو كشقي سيستم كده دولة دي مدحوينا ان فرماجه هذا سجن ودنب ugu joogo isagana wuxuu ka shaqeeyay hagaajinta nidaamka BFM ka ama public finance management nidaamka dawliga iyo maaliyadda Soomaaliya mushaaraadka si joogto loo bixiyo xiriirka caalamka ogaada sumcadda Soomaaliya soo laabato markasta forward shift la sameeyna marba meel la gaaray رجع حنا ما جرت ومرنا لا تقنطوا من رحمة الله مرنا كما قرصانينه هورا لو دقاقة هذا فيري وحابة رجدا وحاكميدا إن دتكي أقوياهن كهلا يردها إن الدمعان بس ياسنا كوميرا برلا بقى جري جرت على تيكر هذا دتكي إن الدمعان داد مينس وحاجره طموح يلا حجعله أو دلكي إن وح لقى بدله يعني مرة حدا رمسا إنه عجلة أما قارجي هرمانيت دلكا إن هو رأس دقاقة دونه يعني كو جوينا دكتور سيدا ورقتها هذا دورشة سيدا كو صعوتو كو باللامتي كاركتير هذا جود أهان إن حقيقة ترى دورشة صعوتو دورشة ضبن إن دولة هذا جوكتو مدحبين فرماجو هو جاميو بروبوزل سو جود بينا جبت برلمان كي جود بين دورشة قف عضة لكن نصيب دور مصعن ساسا وناكسنيز ما أنت قفك حلبان كأنه كصوبح عد إنه كصوب عد الشعب إنه كصوب قفك مدحوينه إحنا قناة إنه عد الشعب كصوب عد وناكسني ذي المريعين إن نصيب دور لو قصبنا عندي بلو صوب نظام كي قبلي جها 4.5 كي يدور شدة بنات يعني لو صو لابتوب إن هذا دور شدة وعي في عنك وبالعبطي وحارسونا ماستر ماي كنت أنا أفرتي سنة ترى ولا هستا قولي دحى أما قولي شعبك أيا هذا أنا دور شو يحكي له صوتها مع القبلة دي عاصمة بنادر أنت أما مقدشوية كوضع صوتها إن دردر في عن وناكسن هذا يكون بلا وطي وحن رجعنا سوى ناكسن وهوفن وحلالة وحاجة قفك واحد دورنا إنهلا لنا إلى لنا حاجة قفك لا دورنا هي أنت بإن شاء الله إنه نوصل لما تو نوجه كتير رجعنا إن بنادم كوحوا وقف وسميسين قف فيرو إسكالي إكران لكن لا الصح wax walba corruption la kala boobay gaari doontaa sidaa ma rajeynayno wanaaga rajeynayna insha Allah inuu markaas waxa tafaalu bil khayr tajiduna wanaaga rajeynayna inuu in doorashada ku noqoto mid wanaag noogu dhamaato oo xalaal iyo mid hufan inay noqoto oo doorka dhalinyarada aqoonyahankan oo ka soo muuqdaan rajeynaa baarlamaanka 2022 2025 Soomaaliya isbeddelkeed la dareemo kuwaasna u haagi doonaan insha Allah qof iyo cod iyo dal horumarsan oo tartan la gali karo in qaaradu ku yaali qaaradaha kale aan aad u rajeynayna insha Allah tabaaraka taala دكتور عاد بوما سنتهاي كلنا كان قيمها بدل محرجين إن شاء الله تعالى أضل وصاد دورتي أن كرسي كان هو رئيسان دونه إن شاء الله عن كلا حساب تم دونه وحيابها قوت إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله ورجينا نعرف كسر داودي على بوما سنتهين برنامج كلنا كجارك ومرتدى كوها دكتور أحمد شي عبد الله ماتكا تاني أنت كجاري إنه مرتي عصب يا برنامج عصب وحيد لنا هاي سداسي نبت قديم